لكن الحمد لله ما انت لله يا مهلا مركز الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلالكين مستر كلمتان oo idin xilli kasta ay tahay wanaagsan halka aad nagala socotaan waa page-ka Facebook ama YouTube ee Mr. Kilimantan. magaalada Hargeysa waxaa lagu soo dhaweeyay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Sheekh oo 11 sano u xirnaa dawladda Djibouti bal soo dhaweyntiisa aan aragno. waxaa magaalada Hargeysa waxaa lagu sameeyay soo dhaweyntii ugu qurux badneyd bulshada oo dhan way u kaceen ilma adeertiisi familkiisi tolkiisi iyo qof kasto yaqaanay oo taageersanaa marka waa loo kacay 11 sano nin xabsi ku jiray waa in loo kaco oo maalinkiisa loo qurxiyo aad u fiican tahay maamada hadda u jeedaan waa maalmo habar yar oo ah waaye marka ninkan xogtiisa waa idinka daba geynaa bal asagana hadlo wax yar ka bacdi. ما شاء الله. لكن الحمد لله ما انت لله يا مهلا مركز الحمد لله. ninkan sidaan xogta ku maqlay 2014 waxa laga xiray Somaliland asoo joogo waxaan loo dhiibay dawladda Djibouti asoo lagu haysto waxyaabo meeshaas ka dhacay hase yeeshee 11 sano ka bacdi Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa waa uu soo daayay oo dawladda Djibouti waa ay soo dhiibtay oo waxay ku soo wareejisay Somaliland taas oo ka dhigan Somaliland maanta inay u dabaaldegayso 11 sano ka bacdi ninkan in uu xorriyadiisa dib u helay bal hasi hadla insha Allah. إلهي ما كان يتمنى إذا كنا أكبر ما سنتي ولا ليال إذا ما يلوي الدورة أنت حبسي كجر قلبي هذه رجرتين وعدي سو جرت إلهينا حبسي ودي بيري دعادي قلبي هذه رجرتين بقولوي إذا كان أساسه ويدعيني ولا ليال واحد مركب وحوي ولا فرصة غالية وان ما أنت ولا ليال فايدة سنة مركب waxaa kaaga sii daran ninkan hooyadiisii markii dawladii Muuse Biixi ay joogtay waxay fariin u dirtay in dawladda Muuse Biixi oo ninkan soo deeyso hase yeeshee waa ay ku guul dareystay inay soo deeyso cod waxa ay soo deynaa ama muuqaal iyo cod la isdul saaray iyadoo Somaliland fariintii dawladii hore fariinta u dirayso oo leh madaxweyne cunugeeya ka soo tagin madaxweyne cunugeeya ka soo tagin iyo soo iyadoo ay tahay laakiin lagu guul dareystay in la soo wado hase yeeshee dawladda hadda joogta ee Cabdiraxmaan Ciro ayaa ku guuleystay in ay soo deysay ninkan oo xabsiga ay ka soo deysay waa kana bal asaga ila daawada waan ku ducaynay inaan ka imanay soo qaad madaxweyne ka imanay soo qaad madaxweyne maanta ka imanay soo qaad madaxweyne mudana madaxweyne farxad waalidnimo ay ka dhigan tahay 11 sano in kala maqneedeen cunuga 11 sano ka maqnaa dawladii wadanka markaas haysatay fariin aan u dirtay ku saamixi weysay in hadda adoon filinayn si tartiib oo aayar ah laga soo daayo sharaf iyo karaamo xaaskiisa oo 11 sano u sabris xaas ka fiican ma jirto xaas 11 sano adiga idan maxbuus ay ku ahayd mina wax kale ma lagu tilmaami karay wallahi billahi adiga maadaama 11 sano xabsi ay ku jirtay idan 11 sano maxbuus ku ahayd oo adiga ku suugaysay waxa waa video dareen leh xaaskiisa ay soo dhaweynayso 11 sano ay u sabraysay inay ilmo u heysay in kale ma ogi laakiin caadi ma ahan xaas ka fiican ma jiro xaq hadii uu jiro qoftaas xaqay ku leedahay waligeed waxay rabto u sameey oo xijaaban oo qurxoon oo ma sha Allah ah oo aadaab leh si fiican u soo dhaweynaysa martida iyo dadka qaraabada ah meesha la joogo waa la soo dhaweynaa eradaa iyadana
ما شاء الله إله كو بركة صاحب سرع حاس في عن أو ونكسن هاي ستا كو يتوان سنة إن لو صبر وهاوا وحي أبانتا صبر إيد القاضي أتكيسي أبانتا هاي نيو قوضا إله كو بركة يو دتكي كسو داي أو كشقي إن لو سو داينا آي سيهين شرفي كرامو نكان فيديو انتا ساعة كسو قبقبينينا براح بالشدة يوتيوب iyo فيسبوك iyo تيك توك سوشيال ميديا هادون فيديوياشيس way qabsadeen oo trade making marka waxaan u sii gudagalaynaa waxyaabaha kale TikTok ka cusub bal daawasho wanaagsan insha Allah ما شاء الله gabadhan waxay u sameynaysaa wiilkan indhoonka asxaan weyn ay u sameynaysaa asagoo mashiinka qaybta laga soo degayo raaci rabo ay waxay saartay qaybta la sii raacayo marka dadka isku mid ma ahan doolayaasha ha la caawiyo ilaahayna ha laga cabsado waxaa qof walaalka hadduu kaga baahdo maxaa la dhahay caawinaad hadduu kaga baahdo inaad caawisaa waa kasaa mashiinkii ay saaraysaa ka bacdi waxa uu soo raaca talo ma soo raaci doontaa mise way ka har doontaa bal aan sii daawanno way saartay weli waxaa lugtii iyo wixii ku aadinaysaa markaan aragna insha Allah marka way soo raacday ujeediin waa la soo raacday weli xitaa kama aysan safrin oo in ay ku sintay rabtaa kolley waxaan u malayaa qaybta dambe ee saan loo sii raaci rabtaa ilaa ay kasoo dejinayso bal aan sii daawan aragn way sheekaysanayaan hadalladii waxbaa dhex marooyo marka caadi maahan danihiisii daruurtiisa u sheegan oo malaha iyo waxyaabaha isaga uu ka cabanayo ama u sheegayso kolley sheekay waxbaa meeshan dhex marooyo marka waa arkaynaayo way soo dejisay bannaankay soo baxeen kolley maadaama hadda bannaanka ay soo baxeen ma ka tegi doontaa mise way sii wadi doontaa aan aragno way ku aadinaysaa isaga meeshuu rabay geynaysaa saan u filaayo meesha isagoo rabay geynaysaa bal aan aragno insha Allah war ninka baraanka uu sameynaya miya warwaana gaadi caadi unoo gaadi qof caadi umaleeyahay oo hindhoon laakiin jeliinkiis waa uu keen wallahi gabadhana gabar fiican waa top gabar fiican waa maxaa yeelay waxa waay ninka miskiinka haddii xitaa ay dhab ahaan lahayd oo kaamarad baysa jiri lahayn sidaas ay u caawin lahayd ka dhigan tahay baraanka iyo ninkan uu sameyn ujeedkiisina intaasuu ahaa dadka caawinaya iyo dadkaan dadka caawinaya inuu kala ogaado rabay waa uuna kala ogaado oo natiijiis waa uu helay gabadhaas waa gabar fiican nin walba lagama helo sidaas wuxuu yidhi minaha kaamirad meeshaas ku jirto kaamiradaasa ku duubaysay aadaad u mahadsan tahay ubaxa uu guddoonsiyahaaba asaab waxaa waay gabadhi waa maasha Allah waa fiicanta ubax jecelu siiyo xariif waana tahay sharafin karaama wuli xariifkan wax ku dhacay elfiris horta iyo qofsaa ku dilaya wallaahi naagta mogtahay digsi waa uu kulaabay soo qaaday farahay saas u gulgumeedka ninka ma biswaan waxaa mi ahaa ayara la soo qaaday meesha la soo saarno laakiin maxaa ku dhacaya fiis wax ku dhacaya naagta iska boojinaya ragad warika naagta iska boojiya waa iska boojiya wallaahi waxaan kuu sheegaa cunuga aa ujeedaan cunug ka tarbiyo fiican oo ka wanaagsan oo sidaan u dacyar cimriga intaa joogo adduunyada ma arkin saaxib wallaahi billahi baan idin sheegaayo bal ninkaa wuxuu sameynaya ila daawada caqliga lagu shubay iyo sida loo barbaariyey is the best wallah ninkaan soo inta leeg wixii alaabtii uu soo dhaqaa meesha haddaan intu siiyo alaabtii uu soo dhaqaa
فيديو حلقة قريسة لايك صارتي 1 مليون iyo 700,000 oo qof داي سروالك سوق كان فير سروال وليا انا انت لك احتسام ما قشن وليا والله فير اي سروالك سيده لو كان في صورته اي داي ما بلش بقى داي الماء الى ان كنت دايان جري خلغان دايان جيران ما سروال ساعه كان داي والله قشتي سروالك عايده لو قشتي كبعد وابلسي قديم نك ما بلش اسمع ارنين كان ابيس وا تربيه والله انك وا تربيه وصع واكن عدنا داي دادنا جاكد ساسا لو قدي عايا لو تاس ولا سمين كره بربلما waa arkadaas jaakadii uu qaatay dhac aabii soo waday heerka qasabkiina ay ma maxay u gelisulay aabis inuu wax ku hagaajisto ilaa bacdi uu saan u gelin lahaa intuu saa u kala fadiyo uu saa u gelin lahaa aabo madaxa u geliyay ka bacdi saas u geliyay ka bacdina waxa baashi sida asagu u rabay ay u noqoto salaam ku saarsan la janaata ani soo barbaar أبيس أقرأكينا فيريا أبيس أقرأكينا محقق قدرنا أربع شهور كل كلية مع عنا سعدي نقولين أنت محاول لي عسمينا مركب وقانا كذا حاول إنك قولي وش قينا وشغالها هو وجينا كاسو سينا وساد مشان ينكر موطنين كاسو وجينا مسكين كا كبعدي وصلنا قناة متكلم قاعدة هويس أو شقة هيسي أو قري جكدي ميا أو عشان جايس وجينا كبعد وصلنا غلط كبعد أبيز حبسينا كبعد الساعة حبسينا أو ماشي أصلا كذا لا تفرق بينا وأنا كمان تربية صاحب تربيتي وفي عناد عنق التربية على تربية والله صاحب واو الثانيون إن واو التربية واو الطاء وحاول كان إزدبستي وصاحب صاحب شرفي كرامة فيديو كان انت ساكو سوق قبقبينا فضلا هديات كان شيء يوتيوب كي سبسكرايب صار فيسبوك بيت كدا داوني سنه فلو صار سين شير غري ديريغلينتا اد ايان u baahanahay falowda waxay ilma tahay $1 oo ay isay ilma tahay saaxib sare sheertaada like oo iskaga baahanahay Facebook iga geejiya YouTube kana iga geejiya taageeradiina aad u baahanahay maalin walba duhur walba casar walba baraha bulshada wixii ka cusub wixii dadka manfac u leh wax walba waa soo gelin doona reaction waa ka bixin doona fadlan follow iyo subscribe ugu dhiirigeli assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Soomaali ha noolaato